dowladda Turkiga ayaa mar kale waxay Soomaaliya u soo dirtay maraakiib casri ah oo ay ugu talagashay inay Soomaaliya ka howlgalaan kuwaas oo la sheegay inay ku xiran yihiin qalabka loogu talagalay difaaca dhanka badda. markii hore dowladda Turkiga waxay Soomaaliya u soo dirtay gaadiidka loo yaqaano kuwa difaaca ama sheegar radeerka dhanka hawada kuwaas oo ilaa uu qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya ka fog lagu ogaa karo xogaha diyaaradaha hawada Soomaaliya ku soo xadgudba isla markaana digniin adag si kara awood buuxda u leh in ay diyaaradaha casriga ee Turkiga iyo kuwa kale Soomaaliya soo iibsatay ee Soomaaliya la in ay ka faa'iideystaan oo ay ka qaadaan talaab xooggan oo arintaasi ka dhana ila wareedyo kala duwan ayaa warbaahinta Xuransi waxay u sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii u dambeeyay ay soo iibsanaysay qalab casri ah kuwaas oo loogu talagalay in looga shaqeeyo arrimaha guud ee la xiriira dhanka iyo isticmaalka hawada badda iyo dhulka Soomaaliya. Turkiga ayaa markaan sarf fadhiisiyay siyaasadda uu ku wajahayo dhanka Soomaaliya iyadoo xukuumadda Ankara ay bilowday qaabka ugu fudud ee loo gaari karo hadafka ugu weyn ee la xiriira dhanka siyaasadda. saacadii u dambeeyay dowladda Turkiga waxay soo dirtay maraakiib iyo diyaarado casri ah kuwaas oo Muqdisho qaarkood soo gaaray qaar kalena wadada dhexe ku soo jiraan. ciidanka Soomaaliya loo tababaray ee dalka Turkiga la geeyay ayaa tababarkooda dhameystay iyadoo saraakiisha mas'uuliyiinta dowladdu ay noo sheegeen in maalmihii u dambeeyay tababarkan uu ahaa mid qaas ah ciidamadan loogu talagalay in ay la howlgalaan askarta kale ee u dhashay waddanka Turkiga kuwaas oo ku sugan gudaha Soomaaliya. dalalka Sacuudiga, Masar, Turkiga iyo sidoo kale dalal kale ayaa loo qaaday ciidamo Soomaaliya kuwaas oo halka ku qaadanaya tababar xooggan oo la xiriira in ay ilaaliyaan amniga guud ee dalka. dowladda federaalka Itoobiya ayaa arintan walaac xooggan ka muujinaysa sabab la xiriira culayska xooggan ay wajahayso marka la eego dhanka isbeddelka ciidan ee Soomaaliya ku yimid. ciidamo fara badan oo Afrikaan ah oo gudaha Soomaaliya jooga ayaa waxay durba bilaabeen inay ka gaashaantaan qaabka ugu fudud ee Soomaaliya ugu bixi karaan iyadoo dowladda Uganda la sheegay in askarteedu ay xirxiran yihiin si ay dalka ugu baxaan. Itoobiya oo ku labanaysa in ay ciidankeeda sii joogaan gudaha Soomaaliya ayaa markaan waxay wadaa qorshe xooggan oo la xiriira arintaasi iyadoo saraakiil iyo mas'uuliyiin kala duwan oo dowladda federaalka ka tirsan ay sheegeen in wadamo fara badan oo ciidamadooda ka jooga gudaha Soomaaliya inay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo xooggan oo arrimahaasi la xiriira. ila wareedyadan ayaa dhanka kale waxay ku warameen in maalmihii u dambeeyay socdeen dhaqdhaqaaqyo xooggan oo arrimaha la xiriira. sargaal soo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu dhankiisa tilmaamay in dowladda federaalka ay wado dhaqdhaqaaqyo xooggan oo la xiriira arintan iyadoo saraakiisha iyo mas'uuliyiinta dowladdu ay wadaan abaabul xooggan oo arrimahaasi la xiriira. saraakiisha iyo xubnaha dowladda ayaa dhankooda waxay tilmaameen in maalmihii u dambeeyay howlgaladan xooggan ay hayeen kuwa diiradda lagu saarayo sugidda amniga guud ee dalka taasoo keentay in saraakiisha mas'uuliyiinta iyo xubnahanba ay bilaabaan abaabul iyo dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabka ugu fudud ee Soomaaliya u gaari karto hadafkeeda ugu weyn ee ah in ay ka mir dhaliso ujeedadaas ay ka leedahay howlgalada waaweyn in ay ka fuliyaan gudaha Soomaaliya. geesta kale waxaa jira kulamo gaargaar ah u dhaxeeya mas'uuliyiin ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladaha Soomaaliya, Saudi Arabia, Pakistan, Turkiga iyo Masar kuwaas oo ay kaga arisanayaan arrimaha gobolka ku soo kordhay. dowladda Turkiga ayaa la sheegay in diyaaradaheeda ay Soomaaliya keentay inay horseeday in wadamo fara badan oo saaxiibo iyo cilaaqaad dhow kala dhaxeeya dhanka Soomaaliya inay ku dhiiradaan qaabka ugu fudud ay u gaari karaan hadafka ugu weyn ee ah in Soomaaliya laga caawiyo ama laga gacan siiyo in ay hesho hadafkeeda weyn ee ah ilaalinta dhanka marinkeeda badda Soomaaliya sida ay sheegeen ilahani kala duwan. muddooyinkii u dambeeyay waxaa socday dhaqdhaqaaqyo xooggan iyadoo inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee Ramadaan dhaqdhaqaaqyada guud ee socda ay noqon doonaan kuwa diiradda lagu saarayo sugidda guud ee amniga. waxaa sidoo kale socda dhaqdhaqaaqyo kale oo diiradda lagu saarayo qaabka ugu fudud ee dowladda federaalka Soomaaliya u gaari karto hadafkeeda weyn ee ku saabsan inay ogaato dhammaan dhaqdhaqaaqyada guud ee la xiriira howlgallada guud ee ka wado dhanka geeska Afrika. Soomaaliya ayaa mar qura si degdeg ah waxay ula soo baxday awood muuqata oo la xiriira dhinaca cirka, ciidanka badda iyo sidoo kale kuwa dhulka. waxay askartaas iyo saraakiishaas bay bilaabeen inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabkaasi ugu fudud iyadoo ugu dambeyn dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay inay wado dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira tababarka ciidankaas la siinayo oo haddii askarta dowladda federaalka Soomaaliya tababarkaas ay dhameystaan ujeedadooda ugu weyn ay noqon doonto in mas'uuliyadda dalkooda ay la wareegaan.
wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordhaa baahinteeda tan xigta warbaahinta xuraansi ku daawo waad ku mahadsan tahay daawashada iyo ku xirnaanta janalkayga sidoo kale wixii talo iyo tusaale ah waxaad nagu hagaajin kartaan qaybta hoose ee commentiga mahadsanid